بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله. الله درادي بعدين شاء الله سبحانه وتعالى وحامهد أن لكوبي كريم إسكاله الله جل جلاله نو قدري نو حكمي نو أقلاضي نو إضمي إن ما تمشى كلنا ثم أنت أكيد وحامهد إسكاله مقالة الجذي مشايخ ذا ما يرد ذا إمام الكذا الشيخ عبد الله علي حاجي ونصيب وين رنتي ما يركي مقالة كلمات كان نير كقيمها بدن قلبك كسو بحيسة إنه ما أنت دياره يهي إنه برشدي ولو ذا جارهان دايرته سيدو كلام ملك إيو مسؤول كمجلس كربها دينته شيخيغا شيخ إسماعيل جزاه الله خيرا وقتها أيو إلاليي كلمات قيمة بدن بواسقنا نديه لها وحن مركو مهد علينا يا ما يركا يا مجلس كإسلامك مشايخدا وغاسيدا دومركا رجا أضياشا دلينيردا تجارتا دمان مقالدا قف والبوا منصبك يدرجدا وكفرديو أيان هرت مركا كوباد أن أغفر أحسنها إمانتا إلى كلمة كل وداغو ساعات با igu socota waan buuxsaday maadaama 30 daqiiqo la yiri mobilkaygan buuxiyay si aan waqtigaasi uga dawmarin insha Allah tabaaraka taala mawduucu waa sida loo iclaamiyay waxaan ka hormarinayaa muqaddimo aad u kooban oo la yiraahdo nicmatul amni jeclahayna inaan marar badan inta idin la joogo aan dhagihiina maqashiyo qalbigeena ay u gudubto amnigu waa shay ajaa'ib badan weeye waxaad ku garanaysaa quraanku markuu tilmaamaya aayada kamida amniga iyo risqiga amniga ayuu ilaahay holmariyay subhanahu wa ta'ala rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuqhu min athamarat horta amnigi ayaa la hormariyay sida hadda aad arkaysaan oo beledka la sheegayana waa makka meel kasto la joogana aayadka quraanka macnahooda yeelanaysa in loo soo daliishado إلهي سبحانه وتعالى وحور مريي أمنك أيهور مريي وارزق أهله من الثمرات هذا أمده هدو أمنك وكفافه ضدكو وينولان كران وضدي بالله مري كرا والله صفر كرا هبين بالله قورين كرا بناناها يدي بدها لسيحان كرا ساعد والبقى يا طرق يودوين كلا مري كرا مساجد أيا لآدي كرا hadduusan amni jirin soo ma aha inta aan sheegay lama cibaadaysan karo masaajida lama aadi karo oo lama tijaaraysan karo oo suuqa lagama soo adeegan karo oo caruurtii baa loo baqayaa oo jeebkooda waxa ku jeebkaaga waxa ku jira u baqaysaa oo mobilkaaga u baqaysaa oo xaaskaaga u baqaysaa amnigu waa shayga ugu horeeya weeye ولذلك الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف الله سبحانه جل وعلا وحكوت المامي إنه محال إلى هذا أمن ياسي أي الله كنت المامي سبحانه وتعالى سيدوك لو حاكم إذا الله وامدك أولم نمكن لهم حرما آمنا ميانا مكانين حرم آمنا ميانا مكانين ونوع قرابين أو آل تجينين أي الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا ولم حرما آمنا سيدا درادة أمنك ضدك أو نمبا أباهن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين قال مصر قال إن شاء الله للتبرك إذكوا آمنين قال حتى نبي الله موسى مركي أشي أي أرضي أو مصنقطي وحالقوا يلي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين قابل بالليلي وش السوق هذا هنا عبسنين وحتى ما تقنا من الآمنين وأن نبت جليساء وأن كل النبت جليات كجرتا نبي مركم مكة قبسنا يوحيري من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أبي سفيان قريسا غفقلا وأبد باليا وهكذا أيها الإخوة
amnigu waa shay aad u cajiib ah waa nicmo weyn horta amniga aan xajisanno oo amniga aan ilaashano oo xukuumaddu ha ka shaqayso oo ugaasiyada iyo malaaqyadu iyo boqoradu ha ka shaqeeyeen culimadu ha ka shaqayso dadkana rag iyo dumarba ha ka shaqeeyeen insha Allah codkii wuu dheeray iska wadaay iska daay codkii wuu dheeray موضوع aan doonayna marka inaanu ka hadalno waa mawduuca noqo mid waxtar la noqo sida daraadeed mid himiladiisa iyo hamigiisu sareeyo inaad noqoto ayaa laga doonayaa ولذلك ابو الهي markuu xagga cibaadada ka hadlayay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min mawduucan maxaan u dooranay waxaan doonaynaa inaan caajiska iska qaadno موضوعا waxaan u dooranay waxaan doonaynaa inaan hurdada aan ka toosno موضوعan waxaan u dooranay waxaan doonaynaa dhalinyaradeenu inay ciid iyo dhulka salka haysta inay intay ka kacaan ay ururka iyo daruuraha iyo cirka inay gaaraan oo aan hamigeena aan kor u qaadno ayaan doonaynaa ولذلك waa la yiri qofka doona ومن أراد الآخرة qofka aakhira doona وسعى لها سعيها ما هو seexday قاد بو عني ودديسو متقنا وقت ودوميي قيل وقال إيا فدي كدير معها وحير وساعة لها سعيها أرنتاسي أغنتدي أرنتاس يدا نحظ وحيدي فأولئك كان سعيهم مشكورا الله وكعب المرين يا سبحانه وتعالى وأنا مد النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل هذا قفك دتك بدك بادية كله البيقان مركب ميل بنانة oo maxalina oo mana ah la doonayo habeenkii in lagu safro habeenimo la gooyaa naftaadana waa loo raaxeeyaa gaadiidkaagana waa loo raaxeeyaa haddaad col ka cabsanaysana habeenimo ayaa la baxaa saadaradeed buu nabigu miisaal balaaqi ah oo cibaaro cajiib ah buu siinaya man khafa adlaj qofka cabsada waa guureeyaa waman adlaj balagha almanzil qofka guureeyana aroortii waqti fiican waqti qabow buu gaaraa meesha uu doonayay markaasuu nabigu noo sheegay waxaan u soconno dhalinyaro dhagaysta oo dhagihiina fura alaa inna silcata allahi ghaaliya war badeecada ilaahay waa qaali oo badeecada ilaahay ma dharba oo badeecada ilaahay ma bariisba oo badeecada ilaahay ma saliidba oo badeecada ilaahay ma inaad murqo waaweyn tahayba oo badeecada ilaahay ma inaad madax tahayba intaasoo dhan midna ma aha badeecada ilaahay waa janna siduu nabigu yiri عليه الصلاه والسلام ان الله اشترانا الهي يري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه marka in الله اشترى ayu Allah ku magacaabay subhanahu wa ta'ala jannada hadaba waa wax la iibsado ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna nabigana عليه الصلاه والسلام asagoo nabi ala yiri fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul waxaad u sabartaa sidii kuwii adiga ka horeeyay ee anbiyada ahaa ee ulul azmiga ahaa siday u sabri jireen oo kale u sabar ayaa nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul naam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul waxa la doonayaa inaad noqoto mid ku dayda dadkii wanaagsana oo wadadii ay mareen oo kala mara ولذلك قال لي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ورد أين مشغولين تجارة إيا أدوية ماشي يكون حريهم بلدون يا إلى فهمته آيات كلام من المؤمنين رجال أضو الرجل متهي فرق بأقول حيا ذكرك إيا الرجلك فرق بأقول حيا ذكرك وانينك الصوء حيل إرمانيس نغون كرا رير قرسان كرا المدالي كرا حبنك ترك وكيالو قابك الرقا أسميسم صعدك الرقا له سروالك الرقا قضا كاسي وذكروي لكن ذكرك وكدويه الرجلك محاضرة أننا إن الرجال نغنى لدونيا إن الرجال نغنى لدونيا قرآن كنا تاسو الله أماني من المؤمنين رجال ما هي قبل يا رجع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وحي إلهي وكرب الله مي أي كرر شيئين دين تبي كرر شيئين إيمان كودي بي كرر شيئين
baarinimadooday ka run sheegeen caqiidadooday ka run sheegeen dadnimadooday ka run sheegeen waxa loo abuuray bay ka run sheegeen min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh walidaalika baa nabigu sala allahu alay wasalam asagoo noo diidan bataalnimada iyo maxaa la yidhahdaa meele istaagtaaga iyo shaqo la'aanta iyo mashaqaystannimada iyo shaxaad ku noolka asagoo nabigu noo diidaya nalala rabo inaanu noolaanno oo aad shaqaysato oo aad musqulaha dhaqdo musqulaha ka shaqayso oo dariishadaha ka shaqayso oo dhagaxa jabi hadihi alcizza cizada laguu sheegaya waa intaa sharafta laguu sheegaya waa intaa inaad qof barido inaad qof shaxaado intaad cumaamadaada soo qaadato waxaa kaaga khayr badan inaad duurka gasho ood xaabo soo gurato inaad duurka gasho ood cadayga lagu cadayda soo gadato inaad duurka gadasho oo aad beer intaad abuurato yaanyada aad suuqa ku iibiso oo ay qorraxdu kugu dhacdo kaana nabiyullaahi daawuud calayhi salaatu wasalaam kaana ya'kulu min camali yadihi shaqadiisa ayuu cuni jiray nabiguna wuxuu yidhi sal ly slam midkii inuu soo xaabo gurto wax yaroo xagal oo xaabo ah ayaa oga khayr badan inuu dadka wax weydiisto ayuu nabigu yidhi sal alla alay wasalam dhalinyaro marka waxaa la rabaa inaad noqotaan dadkii dalka hormarin lahaa oo diinta hormarin lahaa oo cifada iyo ku noolaan lahaa oo sharafta ku noolaan lahaa oo washaqaysan lahaa oo waxbaran lahaa inaad noqotaan way midda la doonayo nabigu sal ly slam wuxuu yidhi in qaamat isaacatu wa fii yadi axadikum ay ku jirto laan yaroo maxaa la yidhahdaa laamaha la tallaalaa fasiila la yidhahdaa wa fii yadi axadikum fasiila fain istataaca anlaa yaquuma xataa yagrisaha anlaa taquuma xataa yagrisaha falyagrisha gacanta laanta uu ku hayo gacanta hadduu awoodo inuu tallaalo ha tallaalo asagoo qiyaamadii maqlaya inay xagga ka soo baxayso hadda waa qiyaamadii ogow ayaa ka dambayn doona qiyaamadii way dhacaysaa xadiidka macnihiisu waxaa weeye shaqayso oo suuqa gal oo ha baryootamin oo maxaa la yidhahdaa ha tuugsanin oo ha shaxaadin shaqayso shaxaadkana jooji gal suuqa ka shaqeeya hoteelada ka shaqeeya maqaaxiyaha ka shaqeeya beeraha abuurta beeraha taas weeye midda la doonayo ka hor waxbarta qalin qaata iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay idaa sa'altum allah fas'aluuhu alfirdows haddaad wax weydiisanaysaan xaggee ma adduunyo weydiisaa lagu yidhi maya jannada weydiista buu nabigu yidhi meesha lagugu xidhaya eeg qof hoos ha isu dhigin firdowsa wax weydiiso ilaahay jannatu lfirdowsa weydiiso ayadaa jannooyinka ugu sarraysa ayadaa ugu dhexdhexaysa ayadaa mataqaana ugu sarraysa webiyada afarta ana ayaday ka soo burqadaan suuratu muxamed lagu sheegay fiiha anhaarun min maa'in gayri aasin waanhaarun min labanin lam yatagayar طacmuhu waanhaarun min khamrin ladati lishaaribiin waanhaarun min casalin musafaa suuratu muxamed lagu sheegay aw suuratu lqitaal webigaasi waxay ka soo burqadaan jannatu lfirdows ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam saxaabiga rabiica ibnu kacab la yidhaahdo nabigu u khidmaynayay wiil yar buu ahaa nabiguna u adeegayay sal ly salam nabigaa la yaabay qaabka ugu adeegaye waysada ugu keenay bal wax iweydiisa buu yidhi wax iweydiiso midkeen maanta haddii uu qof dhila bal wuxuuni weydiiso maxaad u maranaysaa sax jannada anagu ma hayno nabi maxamedna janno ma haynin sala allahu calayh wasalam laakiin himmada iyo himilada meeshay ku xidhan tahay wuxuu islaa xoolo iyo waxbuu ku weydiisan mansib iyo darajuu ku weydiisan magac iyo muuqaal waxbuu ku weydiisan guri iyo degaan buu ku weydiisan dan baad u sheegan dan uunbuu kuu sheegan buu lahaa laakiin nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi wiilkii yarka ahaa waxaan nabi allahu aan ku weydiisanayaa
inaan jannada deris kugula noqdo. Allahu akbar. waa wiil idinkoo kale ah, waa wiil idinka idin la eg. hamigaa ma kugu jiraa? fikirkaa ma kugu jiraa? gabdhaha waa sidoo kale. nabigu intuu ku soo celiyay wuxuu yidhi war bal wax kale i weydiiso, wax kale ma jiraa? weli wuu baarayaa. markaasuu yidhi maya rasuulka ilaahayow, anigu jannada inaan rafiiq kugula noqdo oo aan deriskaaga jannada ku noqdo aan kugula noqdaan doonayaa. nabigu markaasuu dardaaran cajaa'ib sii. dardaarankaa weeye dardaarankana anfacaya. dardaarankaa weeye dardaaranka la doonaya inaan ku noolaano. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi haddaba fa'acinnii calaa nafsika bikathrati sujuud. wejiga dhulka in badan dhig marka weysayso. salli qabla an yusalla calayka. intaan lagugu tukanin tuko oo wejiga dhulka dhig oo salaadii nabi maxamed tuko sallallahu alayhi wasallam uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli maa salakakum fi saqar qaaluu lam nakun min almusalliin. salaad la'aantu khatarteeda ayay leedahay. waana mawduuca la doonayo istiqaamada. ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu. ma tidhi mu'min baana muslim baana toosnow toosnow. middaa way miduu alle noo sheegayo subxaanahu wa tacaala. nabiguna uu yidhi sabcatun yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh. ma doonaysaa inaad carshuraxmaan hooskiisa fadhiisato? bal gacanta taaga yaa raba inuu carshuraxmaan hooskiisa fadhiisto. laakiin ciyaar ma ah, ogaada. dejiya gacanta. waa mahadsantihiin inaan kulligeen doonayno inaan carshuraxmaan hooskiisa fadhiisanno. laakiin dhegayso, washaabun nasha'a fii cibaadati rabbihi. ma aha inaad suuqa wareegto, mucaakasaad samayso, gabdhaha aad daba socoto, mobilka maantoona snapchat iyo tiktoka aad daba socoto, waqtigaagana asaa ku dhammayso, haddana aad gacanta taagtoo dhahdo anuu dadkaasaa rabaa. laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqahu alcamal. waxaa la doonayaa inaan arrintaa kaga dhamayno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaan xusuustay oo mowqifkan aan ku xusuustay nin dhalinyaro abaa wuxuu nadar iyo ballan ku galay. wuxuu yidhi mihir baan bixinayaa. mihir anu gabadh baan jeclahay buu yidhi. yaa gabadh jeclintiinan maanta wax la mihrinaya ma jira? wax diyaara kolbaa de wiilashu way qosleen laakiin gabdho way xishoodeen soo maaha. tamaam. ninka wuxuu yidhi anu gabadh baan rabaa, laakiin gabadhaasi adduunyada ma joogto. waa gabadh aad u qurux badan. gabdhaheenna way qurux badan yihiin, laakiin way ka sii qurux badan yihiin waa gabdhaha jannada. aniga gabadhaasa iga xisaabi. kuwan adduunyada jooga igumaba socdaan buu yidhi. nin dhalinyaro ah. kuwan adduunyada jooga igumaba socdaan anoo ixtiraamay. laakiin maxaan samayn? miciyaar baa lagu galamay. wuxuu yidhi ma seexanayo ilaa aan 30 jeer qur'aanka ka dhammeeyo. 30 jeer ilaa aan qur'aanka dhammeeyo ma seexanayo. markaasaa quraankii buu bilaabay 29 jeer markuu dhameeyay ayuu yidhi ayay hurdadii ka tanbadatay. markaasuu seexday. markaa kadib asagoo jiifa ayay gabadhu u timid. markaasay lugteeday ku dhufatay. waa riyayaa gabadha. lugteeday ku dhufatay. markaasay waxay ku tidhi atakhtuu mithlii وعني تنام فنوم المحبين عني